haddaan dowladnimada Soomaaliya la badbaadin oo dowladnimada Soomaaliya iyo dowladisku uusan hagaagin inaynu 91kii dib ugu noqonaa khatar noqon kara argixisa hadda xarfa galka ayaa dhinay oo mashruuceedii yaallo dowladda federaalku ay soo ay siyaasadayso la waay annagoo dagaal ku jira waxaan ku khasbananay inaan jeebka iyo cashuurta dadka Puntland ka dhisno Puntland oo dagaal caalami gashay Puntland oo dowladnimadeedu ay gumbalaaran tahay oo mashiinka dowladnimadeeda rogaysa haddii wixii caalamku ugu talagalay federaalku cunaha qabto oo $1 ka imaan waayo oo dagaal daacish oo lala dirirayo dowladdu ahayd 2 bilyan oo Soomaaliya dhaqaalaheeda lagu bixiyo securitygeeda $1 iyo hal buladi uu sanuga imaan dowladnimada Soomaaliya waxa la qaban karaa marka aad bay u koobnaan doonaan laakiin Puntland waxay awooday inay dagaalkaana wado infrastructure-keedii dhisto waxaanu October-tii hore aan dagaalka u diyaar garoobaynay ansixinay 9 milyan iyo dhowr boqol oo kun oo wadooyinka infrastructure-ka wadada Boosaaso Gaalkacyo inteedii badnayd waa la dhisay hadda xarfa galka ayaa dhinay oo mashruuceedii yaallo dowladda federaalku ay soo ay siyaasadayso la waay annagoo dagaal ku jira waxaan ku khasbananay inaan jeebka iyo cashuurta dadka Puntland ka dhisno haddana waa socotaa marka taa macnaheedu haddaan dowladnimada Soomaaliya la badbaadin oo dowladnimada Soomaaliya iyo dowladisku uusan hagaagin inaynu 91kii dib ugu noqonaa khatar noqon kara argixisa caalamiga weyna dul saaran tahay